markii liiga gardarina oo sidaan oo kale intaas oo sano aan dul qaadanay li daba socday oo intaas oo sano been ay iga sheegayso suuqa iigu jirtay saaxiib ani idin ka lin kartaa iska yahuudiya aan niyan shalay isguursanay wala kuwa aniga ilma adeertay dad igu sokay wala kuwa ani ila dhasho isku hooyo isku abada siidar am building kula degan Allah ka dhigay nobody iga ka celin kara male aba igar daraystay aba rabbiga rasaas ka bariye ku raaxaysa reenka kaaraha kuma deynay ana hadda ku dhahay war hadii qaarka dambe la iga jaraan ku dhahay qaarkayga hore aniga kugu raab gareynay that's what I decided ani mid kaliyaan kugu deyn kara halka midna waxay tahay inaa qirato inaa iga gardaran tahay inaa qirato inaa idhibaataysay inaa qirato inaa sumcadeeda ku ciyaartay inaa qirato inaa suuq aad iigu jirtay intaas oo gacan haday noqotana wallahi billahi tallahi wali wax ma arag adiga ilka cas dhexdiina ma soo galin waligii allahay marka soo aflagaadayso laakiin hadda mas'uuliyad baa iga saaran inaan daaq ku dhaho oo adiga aan darbaax kugu dhufto darbaaxa social media ka hadlaya marka saasa naga dhaxaysa laakiin arinta caaw ka hadlay waxay tahay aniga iyo orgiyo waxa aan isku haysano ana inta ka cadeynay tan videogan dabadiisa soo gelinaya dadku ha wada arkaan aniga qisada aan ka sheekay dadku ha maqlaan labadan kii gardarana Soomaaliya hawiye iyo daarad waana daawanayaan ayaga garta qaadaya hortare wax la qariyo qurna ku jiro naagtan waxay ku marmarsiyoonaysaa ilka cas ku waalatay horta ilka cas daa raadsanaysa adinka fanaaniin isla anu majaajilista ahay aktarad Soomaaliyeed ba ahay adiga ilka cas dhexdiina ma soo galin waligii allahay marka soo aflagaadayso laakiin hadda mas'uuliyad baa iga saaran inaan daaq ku dhaho oo adiga aan darbaax kugu dhufto hadda waxa joogto gabdhii Ingiriiska u tagtay marqaati marag ma doonto waana soo fariisin karaa xagee aaday oo gabadheeda ah ku cayday ilmo yar oo saqiira oo 13 years old waagaas ahaa waa hore way 70 curcur qamis kala haad ah ayaad soo cayday gabadheeda hadda waa naag weyn iska ka celin kartay intaas oo qalad ah iga gashay darbaaxa social media ka hadlaya marka saasa naga dhaxaysa laakiin arinta caaw ka hadlay waxay tahay aniga iyo orgiyo waxa aan isku haysano ana inta ka cadeynay been waxba social media ku soo qorin qoraalka ay soo gelisan videogan dabadiisa soo gelinaya dadku ha wada arkaan aniga qisada aan ka sheekay dadku ha maqlaan labadan kii gardarana Soomaaliya hawiye iyo daarad waana daawanayaan ayaga garta qaadaya kii gardaran labadeena inta jeer ay igu soo xadgudubtay oo igu soo dhaga hadashay oo ay dhibaataysa bartaana ka sheegaya caawa ma qarinayo sideedaba hadalka murtiyo u dhintaa lambar 1 horta gabadhan qaladka ay iga gashay wuxuu yahay waagi ani Faisal Xawaasi aan wada joognay ayaa waxa jira wiilal soo gal jiray social media especially dhinaca Facebook oo fara badan waxa dhacday hadda ka hor ina aragteen in kala ma aqaanay in social media wiil mursada ah oo kacab la dhigi jiray oo live ii soo galay Facebook kadibna uu yiri Niciimo Joker uu ruuc calay leedahay ninkeedii oo sida ka warqabta anigii Faisal isma arag personally marka laba qof oo aan is aragba marka Mareykan Minneapolis ayaa waxa weyn Niciimo Joker saas uu ruuc calay leedahay aniga waa yaabay aan fariida ilaahay ii keen wiilka xaqo igala qaaday isma naqaan waligay ma arag isla ma hadal mawlid wiil la dhaha wiilal badan ay soo caay adi finally xabadan xaqe iiga socota waxa la iga ceen jiray page fara badan oo ayadu ay leedahay gabadhan aliga caay jiro gabaal aan ka ogaan doono ina ayada leedahay waxa kamid ahaa waxa kamid Farxiye Kabayro official la dhaho oo wiil in adeerkeeda oo mursada oo gacanta ugu hayo oo si toos ah aniga la iiga soo caay waxyaabaan ahayn la igu sheego oo been iiga sheego ayada iskale waayo anigii ayada anagoo isla joogno ayaan aniga ayada isla ma hadli jirin bilkan isla deganeen waxa waaye marka magaaladan imid xalfada la ii dhigay xalfada markii la ii dhigay waa is aragnay waxa isku aragnay sarta dheer oo symbol elevatorkeed waxaan ku yiri habareer xalfad welcome la ii dhigay magaalada imid siba kuugu juuxmeynaysa la hadlin sidii asaga daay aniga ayadu isma wacan jirin isla mana hadli jirin waa marka magaalada imid gabadhi saan sidii uu ahayn waa dhexdaas isku soo dardarsanay page-kii caaydi waa la iga joojiyay markaan ayada ka haro oo qof kale la saaxiiba caayda la igu bilaaba markii dam maskaxdeeda ka shaqeysiyay waa jidkaasna fanaaniin fara badan oo Soomaaliyeed laga soo caaya oo gabdho badan ay ku jiraan waa iska daay anoo sidii ah
sheekadan waxa soo baxda Naciimo Uure leedahay wacal bay rimantaa waa dhilo sharmuuto waaya waxa Naciimo guri kama baxay meel xun ma istaagtid dadka wareega ma tiid naagaha raac ma tiid meel xun ma tagtid meel lagu qayilaay ma tagtid yaal suuq ma raacid maxay tahay ceebtan iyo waxaan laga daboodo oo Facebook intaas la soo gelinay yaa waxaan ka dambeeyay adi finally sheekadii aan baaray Yurubaan la xiriiray qarash badan gali waxaan soo ogaaday gabadhan wiilkan kacab la dhahay iyo dhalinyarta meesha ku jirta inay gabadhan ka dambayso oo igu soo dirtay gabadhiina saaxiibana si aan ugu sheegan garan waay adiga waa mana qabsan waa isaga aamusay waa dhexdaan hadana darisa ahayn way ii imaatay waa heshiinay oo Kenya ahayn Snapchat-ka xataa la soo galgali jiray inaan aragtay in kala ma aqaan ayadoo anagoo okay isku ah baan siidana nacay waxaan xaafadan waa isaga guuraa waa ka soo guuray siidar waxaan soo degay guriga hadda aan deganahay 2021 February siidar ka soo guuray kowdeedii furaha waxa la siiyay 28 January February 1st gurigaan soo degay gurigaan marka aan soo degay maalmaha qays isbaranay ahayd bas qays aan isbaranay laakiin ayadu ma ogeyn because ani waxaan ahayd dadka sheekadooda iyo dheydkooda wixii haday serious ahayn anu dadka inaan la share garay ma jecli markaasna de qof aan isku cusubno ahaa qays ma u sheegin baayada waana soo kala dheeraano dad markaas isku dhaw darisamaana ahayn adiga xaafadan xoogaa markaan deganaa February March April May April horta waa baxay Seattle aaday waa soo noqday May hadana Seattle isaga daba noqday aaday May June kowdeedii aan waxaan isku dhacnay wiilkan Daahir Cali soo la dhahayo oo wariyaha ah oo social media soo gala baa isku dhacnay marka isku dhacnay dagaalka u socday horta maalin accidentiga koowaad wuxuu ahaa first accident aniga aad nagu dhaco idin sheekada accidentiga koowaad oo aniga ayada nagu kala dhaco horta wuxuu ahaa waxay jeceshahay wiil isku dhacnay wiil oo dhalinyarta waxay la dhigay jirtay wiilkii marka way oroday anagoo heshiiso caadi isla qosolna sawirkiisa soo dhigatay bas waa intay baxday oo gurigeeda ka baxday bay camera la soo gasho waxay la soo duubtay Snapchat bas guriga igu timi hebela is aragnay way igu korwada waxaan ku iro aniga qofkaas waa isku dhacnay waana isku dhacsanahay barnaamijyada in mar islama dhigno marka aday ku taala waa idin dhexgalaya waxbuu ka tabanaya waxbaha aniga hana dhexgelinaan ku dhahay aniga qofkaas heshiiskiisana ma rabee habarada macaani hore aan ugu socon arinta sidii iga amustay haddana waxaan isku dhacnay gabadhan hani la dhahayo oo hani sharaf aan isku dhacnay hani sharaf marka isku dhacnay aniga hani sharaf hadda waxba naga dhexeen dad kuula oo caadi ah nahay laakiin hani sharaf iyo aniga isku dhacsaneen hani sharaf sawirkeeda ayadii waasheed bad Snapchat-kooda soo dhigteen ayadoo ordaysay soo wacday habar haye waxaan ku yiri inaan weydiiyo rabtaa magto waxba ma weydiin ka saacadaarka jirtay gabar xamar joogta aan shaarad u soo sameeyay ma aragtay waa shiba isaga dhahay haddana hadal kale igu soo celisay shiba isaga dhahay waa dareemay gabadha inay fidma rabto waxaan ku yiri haye waa sii seexanay nabaday sidii uga tagay haweeney ahayd adi anagoo sheekada intaas marayso ayaa sheekada hadda ku iimaanay marka June 1st waxaan isku dhacnay Daahir Cali soo ninka suxufiga iyo aniga laba qof oo social media caan ka ahayn ayad gabar caan waay oo fanaanad ah waa isku dhacnani asaga marka isku dhacnay umada kale magaalada joogta dhan caadi ahaayeen gabadha ayada ordaysay soo wacday kama qaban telefoon mar labaad ay soo wacday kama qabanin mar labaad ay soo wacday kama qabanin waxay soo kaxaysatay ilaahay baa ugu og inaana been sheegin oo wallahi oo billahi oo tallahi to alif teedi habeenimo anuu gurigeyga dhex fadhiyo oo waliba maxaa sameynay matimaha shalnaysana anuu macnaha si haysatay afar wiil aan isnaqaano iyo ayadii irida gurigeyga soo garaacday gaaw ilaahay baan ku dhaarto xamoosa booliis waa ka fura waxay tiri habar maanta dhinac ku soo wacin maxaa noo wacbeysa waxaan ku yiri BC ahaa waxay u socotay inay kaamarada iga duubato waa soo fariistay barsadii soo fariisteen ma sha Allah tabarakallah waa soo dhaweey aan qof guriga kuugu imaado waliga lama xumeey dabeecada ani aqaana waxa waa haddaan anagoo anaan xiriirkan fiicnayn hadduu qofka irinta igu soo garaaco daasid waxaan u qabo waa iloobaya qofkaas gurigeygu iigu yimid sharaf ka weyn ma jirto soo dhaweynaa saasa aqaana aniga dhaqanka liigu soo koriyay iridan ka furay soo dhawaadaan dhahay way fariisatay waxay ugu tiri adigii Daahir Cali soo arintiin inaa soo gabagabeeyaan rabaa fiidiyoo raali gelin ah inaa u duubtidna waa rabaa waa ka duubayaa isdiyaari kaamaradan waxaan ku yiri ani horta kaamarada igama duubaysid aniga ninkaasna
sheekadana waxay noqotay durugta ceebtii dagaalku cirkaas iyo caadaas isku shareeray oo maanta ma taagna Niciimo ma taagna wuxuu taagan yahay rag because rag wuxuu u taagan yahay aniga markii leecaay tolla ayay yaa Soomaaliya ma dhinto la ayaa daaroodan dhahay marka qabiil wadaama ana carabka aan ku dhuftay gabarna aan ahay sheekada way fogaatay reebtiga soo gal reeadeerkiya soo galay tolweyn oo dhanaa soo galay wixii qaraabo aan ahayn daarood iyo hawi isaaq dagaalkaas looma kala harin marka maanta inaan aniga aan hadana inta luqluq ka baxo adiga inta ii yimaatay orgiyo as video iga duubatid lama heshiinayaan ku dhahay way baxday inay iga aqli badan tahay mooday arin ilaan naagta markii ii socotay Facebook-geeda post soo dhigtay ee leedahay Niciimo Jookala u socda arintan soo dhameynaya raali gelin bixinay marka raali gelinta ka diideen post soo dhigtay ee leedahay aniga dhexdooda waa ka baxay ninkii naagta post-igi dambe ana waa ka soo jawaabay post-igi waxaan soo qoray aniga waxa gabadhaas iyo waxa ii imaaday dad badan oo aan aqaano oo magacyadooda aan meeshan ka sheegaynin waxayna iigu imaadeen nabadeen anigana waa ku gacan saaray nabadii ana diiday ma qarin waan cadeey aniga naag hadalkeeda laga batan mi gabadhan yaani khilaafkeena meesha ka soo bilowday waxay ilkaas ugu marsiyoon aan sheega mugta saasan ku kala tagnay waxa la rabay farxiyo inay iska aamusto maysan sameyn sheekooyin badan way soo baxeen dad badan oo soo aflagaaday social media in ayadu igu soo dirtay la soo ogaaday oo ana magacadooda hadda sheegeen because ani ay weeshiinay dadka daashiisaan lama sii daba dhigto anu ma yihi dadka maaragtay meed garaac yaqaan maahay marka waxa dhacday habeenkii dambe labaad daahir cali suurkiisa soo dhigatay waxay soo dhigatay Facebook-geeda waxay soo dhigtay Ayub Carlo iyo caynay sawirkiisa iyo daahir cali soo dhigatay waan arkay waxay soo dhigtay jugta culus kelmad jugta culus oo daahir cali soo aniga dad saacayaan wax walba isku caynayni kelmadaas ka soo dhaxbaxsato jirtay 4 daqiiqo way ka saartay waa haya screenshot-kii bas aniga halgay marka arkay shiba isaga dhahay ani screenshot-ka xataa kama soo qaadin gabdho badan fareena soo waca mursada oo ay isnaqaano Yasmin Caraale kamid tahay anoo karbaashay waxa la igu yiri Niciimo Jookala gabadhaas faraha ka qaad okay bambe iga sheegtay Facebook live soo gashay waxay tiri ogaadeen waxa la iga raali ahaado saan waaye ayadii mid khilaafaad kale to qabiilo ka dhaxeeyay ay xalinaysay ma dhihin maxaa u xalinaysaa iyo maana ay haysataa because aniga imaba qosayso ayadii ogaadeen wixii ka dhaxeeyay because anigu ogaadeen mihiyo ma jeerteen ba ah barasho wanaagsan saaxiib marka ogaadeen u la garamaysay soo anigana ma dhexgelin gabadhaas ogaadeen kala garamaysa aniga ogaadeen de afhayeen u mihiyo ayadii baa la hadlaysay moogta shiba isaga dhahay indhaha ka daawanay waxay sameysay video dhaga hadala oo aniga macnaha ogaadeen ay igu xaqlinayso bay waxay soo dhigtay Facebook-ga sidana hadal tiri Niciimo Jookala caadi uma dhahaysan laakiin aniga wadaay niman baa igu soo diray naag baa igu soo dirtay Mareykan joogta oo tiri hal dilo farxiyo Nairobi anigana nimanka waa ila soo hadleen sirtaada way fashilantay horta runta hadaan ka hadlo inkastoo bini aadan uusan qancaynin hadana wallahi oo billahi oo tallahi Nairobi qof aan toos isku hadalno ama personal aan waqaano ama amaanta aqoon u leeyahay waxa ka joogta gabar Leila Bashiir oo habar yar aan wahay ayaduna ay ilma bareedihiin qof kale oo bini aadan oo maanta aan kala xiriiro Leilana waa ogtaana hal qof oo bini aadan oo maanta aan ka aqoon Nairobi dadku dushaas umba iga yaqaan aan dushaas ka aqaana iska jecelnahay laakiin qof aan caadi isku naqaano caadi isku wacna Leila ka jirta dad badan oo taageera jooga Nairobi inay arkaan jecel oo aan isbarano laakiin Ilaahay caafimaad nagu wada gaarsiiyay laakiin qof aan isnaqaano maanta ma jiro ilaa isbarano Kenya kul xal way igu soo dhaga hadashay way ila soo dhaga hadashay shiba isaga dhahay way baxday sawirada daahir cali soo dhiganaysa dib malaha dadku way soo dhigan karaan sawiradooda qof haday isdagaalaan dadku way kala jabi karaan big deal ma aha inkastoo aniga ayadu aan dad saas close very close aan ahayn oo dad like saaxiib waligeed aan noqon laakiin waxaan ahayn dad is yaqaan oo close because isku baabna ma ahayn isku balwadna ma ahayn isku jaanqaadna ma ahayn marka dad isku saaxiiba ah oo israaraaca aniga ayadoo meel isla tagay ma ahayn laakiin dad is yaqaan ahayn oo dariskana xaq u leeyahay xaq dariskana waa dhowri jiray because afkayga iyo adinkayga way ka nabadgali jirtay gabadhaas afaareeda kama hadli jirin waan taageeri jiray hees cusub day soo saartay waa soo saari jiray snaapkayga dad xushmad ka dhaxaysan ahayn ayadoo intaas xumaana marayso oo aan isleeyahay gabadha maxaa ka qaldan
baa message loo qoray gabadhan message-ka marka Soomaaliyo dhan baa af Soomaaliga isticmaasha Soomaaliyo dhan baa isku si u wada hadasha dadku kala luuqad ma aha laakiin gacmaha aan taleefankayga ku hayo iyo carabka aan ku hadlaayo Ilaahay kansar ha iga geliyaan ku dhahay inaan message-kaas qorin waxna ka ogeyn message lagu caynaya loo qoray way baxday message-kii screenshot ka qaaday gabar bay wiil u dirtay way iga dacwood waxay tiri Naciimo Joker baa text message ugu soo cayday waxa ay wiilkii ay u dacwootay soo wuxuu yiri Naciimo message gabadhan ku cayday waxa ay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aniga ayada xumaan ee ayada ii qabin ani uma qaba gabadhan ayada daraamo maanta oo dhan igu wada laakiin gabadhan xumaan uma qabo message-na uma qorin mana arag markaas waxa waa gabadhu waxay tiri message uma soo qorin waxay ku jawaabtay hadalkeeda iyo qoraalkeeda aqaana waa qoraalkeedii waa yaab gabadha cadaawada intaas leego Kenya askar ay ugu soo dirtay message ii soo qortay gabadh maxay soo wad gabar la aroosay gabadha hani sharaf waan isku dhacsanayn oo dadkii waxay ku jirtay daar cali soo soo hiiliyay anaga hore soo dhacsanay haddana dagaalka dhinacan iiga soo qaaday reason la'aan okay dib ma laha aniga marka waxay samaysay gabadha arooskeeda snapkeeda soo galgalinaysay big deal ma qofku aroos waa soo galin karaa ama 100 gabdhood baa maalin soo galiya wax weyn ma aha hees bay u soo qaaday ma sha Allah tabarakallah aroosad qofku markuu guursado hees giftay qof walaalkiisa ama saaxiibkiisa uu ka heli karaa wax weyn ma aha maanta oo dhan message ii soo dirtaa luuqal igu soo diraa Naciimo Joker maxay tiri maxay maalin dambeeto ilaaha amarkiis gabadhan ayuu inta soo qalad iga gashay oo maanta dhan iga dacwoonayso oo anaga waxba ka sameey inta ay daba socota baa habeen anoo xaafadiska joogo wiil Yurub jooga ayaa wuxuu yiri qofka saaxiibka moodayso saaxiibka ma WhatsApp-ka liigu soo qoray oo qofka muxuu ka wadaa saaxiibkee wala saaxiib ma lihi naagta saaxiibka la tahay orgiyo ka wadaa maxaysan saaxiibta ku ahayn gabadhaas ayaa waxay ii soo dirtay ma gabadhaas codkeeda ma aragtay iyo message-da la ii soo diray qoraaladeeda qoraalada maxay yihiin qoraalada address-kaaga iyo wallaahi qoraal ii soo qoray Naciimo Joker soo cay sidaan dheh waxa ku caydaa gabadheeda halkaas joogta wadankaas ay keentay iskuul ka dhigata boarding school hooyadeed gaalkacay degantahay maxaa sacad ma degana miyaa gaalkacayo maamada waxa la dhahay magacaas xaafadaas degantahay Naciimo Joker green card haysta passport ma haysato sharci weyn ma haysato Mareykanka sharci la'aan waa dis waaye ku soo cay saandhe message daahir cali soo qortay waay marka wixii oo dhan oo screenshot garaysan wallahi qofkaas ma aqaan iyo billahi inaan aqoon iyo tallaahi inaan aqoon hadii maanta bistoolada uu qabtana ma aqaan laakiin message-daas oo dhan la ii soo qoray wixii oo dhan inbox-ka la ii soo galiyay ma seexan waaga igu bariyay subaxdii waxaan soo qoray saaxiib naageed faa'iido ma leh daris ahaada ehel ahaada walaalo ahaada 20 sano isaqood 17 sano isaqood waji ma laha gabadhan marka aniga ilka asana ma igala qaadin meeshaas ilka cas markaan isguursanayno waxay ahayd June 16 markaan isguursanayno ma soo hambaliyeen dad badan ay fariin soo fartay oo igu caydo tiri arooska waa baraanki waa saan bakh ayadoo caytamaysa la ii sheegay dhowr jeer ani qaysoo wada fadhino waa naloo sheega intaas arooska waa baraanki waa dataraasha saan waaye Naciimo waa saan hataa nina shukaansan jiray iyo waxaas ayadoo korkayga saarayso dhayso ninkaas qabi jiray intay ka baxday waa arkay waa dhageystay dhigtaana ka bixiyay maalinta dambe ay waxay samaysay hadallo badan Naciimo alaabta ii dhaqi jirtay oo cuntada ii karin jirtay goormay aniga ii kibirtay oo aniga ay afka igu soo taagtay marka 150 cay teeda kale tacaydan kaleeto oo ay leedahay gabadheeda Ingiriiska hadda ka hor ayadoo joogta gabadheeda cayday waa la ii soo sheegay gabadheeda waliba markaas waxay ahayd 13 jir ahayd markii gabadheeda aflagaadeysay gabadheeda oo saqiir ah waa la ii soo sheegay because la fadhiyo anagii ayada sida ogtiin isku xaafadan ku dhalanay gabdho reer Bakaare ahaayeen waliba ayadoo been sheegayso dhayso Naciimo gabadheeda ayay waa sheekadan aan qashin xataa suuqa gabadheedo yar oo 13 jir naagta suuqa galisay way Naciimo gabadheeda waa naag weyn waa la qaba ciyaal ay leedahay hooyo tahay oo ilmahayga la aflagaaday ku doodaysid
hadda waxaa joogto gabdhii ingiriiska u tagtay marqaatii maragma doonto waana soo fariisin karaaye xaggee aaday oo gabadheyda ku cayday ilmo yar oo saqiira oo 13 years old waagaas ahaa waa hore waay 70 corcor qamiis kala haad ah ayaad soo cayday gabadheyda hadda waa naag weyn iska ka celin kartee intaas oo qalad iga gashay marka ani hadda ku soo karbaashay marka maadaama waxaan dhahay abaheelay heblaaya ismaagteen heblaaya xambaarsan tahay hebla ismaagteen hebla xambaarsan tahay hebel kala ismaagteen hebelkii kala xambaarsan tahay ana maxaa ii diiday marka aniga go'aanan gaaray marka qof kasta isku dhacdaan ana qayd laba yaardiyaan soo gadanaya waa xambaarsanaya marka xambaarka qofkii labadeena culays ku dhibaan arkaynaa aduna qof allaale qofkii teeda kale qabyaalad bal fiiriya nin hiraaba adigana karan laa tahay curadka hawiyaa tahay asaguna waa nin hiraaba waa isku hiilin kartaan soo ma marka isku hiiliye muxume waxaaga cadayso oo waxay dhahdaa habaryare ninka is haysataan waa ina adeerkay waana u hiilinayaa habaryarnimo bul Allah siiya anu ma jarteen ma qoray dheh waa ka yeelaya laakiin aniga igu soo marsiyo niciima ilkaasi u hiilina ilkaasi aad maxaa isku haysataan ilkaasi adiga 2016 as dagaashan 2021 lagu jira come on wake up waa hore ahayd long time kale dadkan ku waashay niciimo macnaha ma lacishto iyo niciimo ninkeeda mucishto saaxiib runta ku sheegaa de aniga anaa isku nool cidna uma nooli hadda koorna waa sheegay anu markaa nobody afkayga waliba especially markii la iga gardaraya oo sidaan oo kale intaas oo sano aan dul qaadanay li daba socday oo intaas oo sano been ay iga sheegayso suuqa iigu jirtay saaxiib ani cid ka lin kartaa iska ruud iyo aan niya shalay isguursanay wala kuwa aniga ilma adeertay dad igu sokay wala kuwa ani ila dhasho isku hooyo isku abada siidar building kula degan Allah ka dhigay nobody iga ka celin kara male adaa i gardaraystay adaa rabbiga rasaas ka bariye ku raaxaysa riinka kaaraha kuma daynay ana hadda ku dhahay war hadii qaarka dambe la iga jaraan ku dhaqaarkayga horaan aniga kugu raab garaynay that's what I decided ani mid kaliyaan kugu dayn karaa halka midna waxay tahay inaa qirato inaa iga gardaran tahay inaa qirato inaa i dhibaataysay inaa qirato inaa sumcadayda ku ciyaartay inaa qirato inaa suuq aad iigu jirtay intaas oo sano inaa qirato intii WhatsApp oo waaga hodan Cabdiraxmaan isku dhacdeena laga caay jiray waaga farxiifiska isku dhacdeena laga caay jiray nasteexayndana laga caay jiray ana la iga caay jiray ina website-kaas adiga leedahay oo aniga dhagahayga aan kugu maqlay adoo ila fadhiya intaad wacday oo aad tiri walaalo kada la iga daayacaydi ani kula fadhiyo oo wallaahi carabkaaga qoyan kuma hadlay iyo billaahi iyo tallaahi waa tan meeshan jiif ilaahay nabad iiga kicinin farxiyo waa kula fadhiyay habeenkii inta wacday aad ku dhahaysan ciimada ina leedahay maalintaas rilaas garay hodan waxa laga caynay dhowr sano oo nasteexa laga caynay oo waxa laga caynay farxiifiska inta gabar fanaan oo sharaf leh oo dhibaato loogu geystay website-kaas ma sawicin oo website page leh ma jiro kulli admin uga tahay hebelo inta wiila aqaano war xataa website-yada waaweyn oo dadka laga caayo wallahi qaraaxo iyo qarxis hebelo waxay wacaysa hadaa aragtid wallahi oo billaah oo talo ma maleysan kartin naagtaas intay fidno wado munaafiq dadka hoosay ka gurtaa markaasay si todoba habeen u qayilayso markuu darbiga ku soo socdo marqaan ayadoo labada indhood xabadiiba gacantayda fistigeeda marka saas loo laabo intaas ay la eg tahay ee intay soo fariisato Facebook gabdho islaameed oo yaryar ay caynaysa ayadana afkeeda iyo labadeeda af ma kontaroosho markaasay gabdho yaryar oo masaakiin waxay ka caynaysaa Facebook waxay la heblaaya isqaawisa heblaaya inta ka baxay heblaaya ka alisay adigina waa dayacan tahay teeda kale waxa tiri hal igu fasaxo waa lagu soo fasaxay bal cida ka af Soomaali badanta ama ka xoog badanta magaalada isla joognaade iyo groupkaaga yar oo corcor kala samaysatay waxaan ku sheegayaa af Soomaali haday noqotana Ilaah baan ku dhaartay kulli meel ay idin ku saaraya adigii groupkaagaba I don't care nobody aan ka baqa mal Ilaah baan ka baqa haday gacan noqotana wal isiqaanade darqwaani adig shalay isma baran shalay maanta isma baran 2020 2019 isma baran you know me I know you you see me I see you my friend si fiican ay taqaana maal dhow targetkan kugu arkay laba naag oo Soomaaliya dhex taagnid 10 minute been kuma sheegay 10 minute aan banaan ku sugayo soo bixi weys
you know what aniga adiga is on aan ku yiraabay hadday noqoto aragtina waa inoo aragti hadday noqoto afna I'm here for you dhinac walba attack hadda igu sameysay if you attack me I will protect myself okay saasa noo balan aniga adiga bayna naagti xoog badata meesha u areys ilaa intii wax been iga faafisa abeentay way dhahay oo iraali gelisidna kuma deynay ani taas balan iyo axdi aan nafteeda ka qaada way ina meel iska ka saaro ilaa intii wax been iga faafisa abeentay way dhahay oo iraali gelisidna kuma deynay ani taas balan iyo axdi aan nafteeda ka qaada way ina meel iska ka saaro ilaa intii aniga waa taqaaniin Soomaaliyeed qabiil kasta tiin toosa idin hadla ani dad badan isku dhacnay waxaan isku dhacnay hani sharaf waxaan isku dhacnay daahir waxaan isku dhacnay filis wacwac waxaan isku dhacnay ma qof isku dhacnay nasteexa hatta waa isku dhacnay oo naadirteed dad igu sokaysa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi qof aan caaw uqdad ugu seexanay ama xumaan u qabo ma jiro laakiin gabadhaas uma malaynaa ilaahay waxaan ka baryaa iimaan saadiqa iyo qalbi fiican u isiyo gabadhaas si kasta aan yeelay waa afin waaye sababtana waxa keenayso والله wax maskaxdeed ka weynaatay noqoto markii masajida la isoo dir wax walba isoo diray why you hate me that much and why you attacking me that much why intaas xaasidnimada intaas like oo kugu kaliftay inaad dad igu dirto oo message qorto why what did I ever do to you habar yar macaan inaan ku dhashay ku keeno fadhiga kuugu soo adeeg marka ay yimaado moga have I ever disrespect you why you did it to me waasi seexanay mar halka mar ugu dambeys والله تذكر لو حاتر نعيمة عايد والله بالله يطلع إنا نكو عايد أقول أنا أيوة كادما والله وبالله بوقاق حتى عوان كيس ولي ما أخرين عاي أنكو عايز كناف يا والله إنا نبوقاق فرن ولي بوقاق وحرين هاي ميسكو إيدو لسارين تاريخ هذا بلا ولا دمات ما فرن ولي ما أخرين جلديga kora xataa ciwaanka buuga ma akhrin wali waxaan dhan arkays aaraarsi iyo dharagdhacsi waay gacan haday noqotana wallahi iyo billahi iyo tallahi wali wax maada arag aqoon la'aan igu ka dhiman you don't know me war aniga xushmad iyo respect wax aan ahayn waxba kuma lihi aniga dagaal waxba iiga ma qaaday ani nin iyo naagba yani isku kaafaanina marqaatiya iiga tahay you amarqaati gashana qof kale ma gashanayo you dawan nijaasada fanka dhuusada fanka adaan ku gashanaya marqaati you dawan marqaati witness iga inaan wali furin baabkaaga adi xataa waa ogtahay you know that right baabkaaga illa 99 illa 2021 ma furin ani I didn't open your book laakiin wallahi oo billahi oo tallaayaan ku dhaay 3 sano waay haddaan buugaas ciwaankiisa kaliya akhriyo dhulka kula wareegay marka ani buugu ii qoran yahay halkaas uu saaran yahay marka de waxa anaga aan gudoomiyaha fanka anoo ah habeen barkan la soo jeedo Soomaaliya inaan gudoomiyaha fadarada fanka aan qabto waxay taagan tahay gabar halkaan qosolka iga dhameysay iyada hurdada iga qaada la dhib badan Soomaali committee qosol mino kute walaalo ayadu ma boolis baa mise waa fanaan maxaa labadii qof is qabataba dhex dhigay ma boolis baa waa wax su'aasha ay isweydiinayno aan rabno inaan fadarada fanka ka qaban Soomaaliya arinta